labadan xisbi markaa waxay u caddeeyeen go'aankii ay shalayba labada xisbi sida wada jirka ay u sheegeen ee ahaa inay qaateen go'aankii ay soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadinta ahaa ee ka koobnaa maxaan ku dhaha ganacsatada iyo culimada iyo dadka khiyaarta ah ee Soomaaliland ka koobnaa go'aankii ay soo saareen ee shan labada xisbi sida cad ay u sheegeen inay aqbaleen ayuu baan qoladana u cadeynayna inaanu dhankayaga labada xisbi ay ka aqbaleen diyaarna ay u yihiin labada xisbi waanu la kulannay waxaanu kala qaadanay information marka arintuna waxay ku eg tahay proposalkii ay soo jeediyeen guddigii dhexdhexaadintu oo aanu mahadnaqayno oo haddaan nahay xisbiyada mucaaradka aqbalnay horena aanu u sheegnay marka maanta hadalku wuxuu ku kooban yahay inaanu isfahanay doonariska diyaarna aanu nahay inaanu wada shaqayno mowqifka iyagu waxa weeye waanu taageeraynaa waanu ka shaqaynaynaa galabta qoladan waxaanu ka wada hadalnay arrimihii doorashooyinka xisbiga kulmiye markii horena wuxuu diyaar u ahaa in doorashadu ay dalka ka qabsoonto maantana wuxuu diyaar u yahay inay doorashadu dalka ka qabsoonto xukuumaddu waxay diyaar u tahay inay doorashada dalka ka qabsoonto waxa la yaab la imika maanta in 18 bilood dabadeed ay yiraahdeen komishinkii aanu diidanayn baanu la shaqaynayna ka imika joogana komishin qaran baanu naqaanayo hadduu xilka hayo kulmiyada uu la shaqaynaya kii hore hadduu soo noqdana uu la shaqaynaya arrinta maareynteeda xisbiga kulmiye wuxuu ka taagan yahay meel aad iyo aad u macquula siyaasiyan in la isugu soo dhawaado oo laga wada hadlo